dagaalkii ugu gaabnaa taariikhda abid dagaaladu waa dhacdooyin aad u xanuun badan iyadoo marka laba dawladood dagaalamayaan la isku adeegsado ciidamaha aad u tiro badan leh lana isticmaalo hubku ka culus yahay dawladuhuna geliyaan dhaqaale aad u tiro badan si midba midka kale uga xoog bato si fiican loogu adeego ciidamada dagaalamaya taariikhda aadka u facaweynaadana waxa laga diiwaan galiyay dagaal baan oo dhexmaray dawlado waaweyn oo soconaya muddooyin aad u tiro badan waxaana kaalinta koobaad kaga jira dagaalkii baan ee dhexmaray boqortooyadii Andalus ee muslimiintu haysatay iyo sidoo kale dawladii Isbaanishka dagaaladaasi cadaawadaas oo socday muddo dhan 781 sano sidoo kale taariikhda waxa ku xardhan in ka badan 66 dagaal oo soconaya 100 sano iyo wax ka badan asaxaatay muuqaalkan dhexdiisa waxaad kaga bogan doontaa taariikhda dagaalkii ugu gaabna abid ee la diiwaan galiyo kaas oo socday kaliya 38 daqiiqo 38 daqiiqo kaliya waxa xiisaad dagaalka uu yeelaya ma taariikhdiisa inaad ogaato waqtigii gaabnaa ee uu socday sidoo kale waxa xiisa u yeelaya waxa weeyaan ogaanshaha ogaanayso labadii daraf ama labadii dhinac ee dagaalka kaas ah dhexmaray cid ay ahaayeen laakiin intaan muuqaalka bilaabin fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka ku soo biro adigoo subscribe taabanaya gabalkan furasi ku soo gaaro muuqaal waliba markii sidaa u soo galino siin hore u sheegnin hadafkeenu waxa weyn intaan sanadkan dhamaan in aynu gaadho 100,000 oo saaxiib kamid noqo asxaabtan ugu xidhan muuqaalka kan ahna like gare kuna soo dhawo videoga dhammaystiran ka sarifa xadiga lacageed doonayso numberka telesom ee ah 31 ama somtel 5491 qarnigii 19aad waxa dunida ka jirtay boqortooyo aad weyn oo in badan oo idinkeedii kamid ay tahan garanayeen waana boqortooyadii Cumaan boqortooyada tan ahayd boqortooyo aad u awood weyn sidoo kale haysata ciidan badan oo aad u xoog badan waxaana boqortooyada islaamka ahayd loolan baan kula jirtay dawladihii reer galbeedka ee gaalada ahaa ee waagaas ugu awood weynaa xagga ciidamada badda ee Britain iyo sidoo kale Portugiiska iyadoo kula xifaaltami jirtay maamulida khaliijka Carbeed iyo sidoo kale badweynta Hindiya ciyaaryaarna ma ahayn dawladda Cumaan awoodeedii badeed waxaanay ka adkaatay ciidamada Portugiiska gabi ahaanba oo waagaas awoodii koobaad ee dhanka badda waxaanay ka saartay gobolada bariga Afrika koonfurta khaliijka Carbeed iyo sidoo kale badweynta Hindiya maamulkeeda iyadoo markii marisay boqortooyada tan ay halkii ugu sarreysay gacanta ku dhigtay badduleed aad weyn oo teedsan laga soo bilaabo koonfurta wadamada Iran iyo sidoo kale Pakistan ilaa laga soo gaaray dalka Mozambique ee dhaca Afrika iyadoo badkeeduna gaaray in ka badan 1,400,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah hasaatay sanadii 1856 wuxuu xaq u yimid Sultan Said bin Sultan al-Bursaid oo ahaa xaakimkii ugu dambeeyay ka taliya boqortooyada Cumaan oo midaysan markii boqorkii dhintay waxa isku qabsaday xukunkii maamulkii dawladda inamadiisi khilaafkoodina cirka ayuu isku shareeray waxaana ka faa'iideysatay dawladii Britain iyadoo oo soo dhex gashay tirina waan dhexdhexaadinaya maadaama annaguna aan deegaanada idinka agdhow ka talino si aan u ilaalino deganaanshiyaha gobolka Britain waxay soo jeedisay fikradda ay ku baabi'i lahaayeen ee ahayd farriq tasud kala qaybi kadibna maamul oo kaadka iyadoo tiri xalka ugu wanaagsan ee lagu maamuli karo dawladdan aadka u baaxad weyn waxa weeyaan in loo kala qaybiyo laba qayb waqooyi iyo koonfur qaybta waqooyi waxa ku yaala dawladda Cumaan iyo sidoo kale Masqad waxaana ka talinaya Thuwaini bin Said waana qaybta dhacda qaaradda Aasiya halka qaybta koonfureed oo teedsaneed bariga Afrika xeebihiisa loo bixiyay suldaanada Zanzibar waxaana ka talinaya Sultan Majid bin Said qaybtan koonfureed oo ka talinaya Majid bin Said ee loo yaqaan Zanzibarna oo qaybta u daaran yahay muuqaalkeena kan ah dawladda Britain maadaama ay haysatay dhulal ka agdhow dawladda Zanzibar waxay isku fidisay dawladda Zanzibar lafteedii iyadoo maalinba maalinta ka dambeysay ku sii awoodeysanayay dawladda Zanzibar dhexdeeda waxaana doonaysay inay gabi ahaanba dawladda tan ah gacanta ku dhigto maadaama labada qaybood ee suldaanada Cumaan ka koobnayd qaybtani tahay qaybta labada qaniga ku ah dadka sidoo kale waxay qanid ku hayd macdanaha iyo tharawaadka dabiiciga ah sidoo kale waxay awood u saartay in dawladda Britain gacanta ku dhigto dhulkan waxay ahayd inay joojiso dhul balaarsigii dawladda Jarmalku ka sameeysay eriyadaas markii dambe dawladda Britain waxay heshiis la gashay dawladii Jarmalka iyadoo uu dhexmaray heshiis loo yaqaanay Holigoland Zanzibar sanadii 1890 heshiiskaas oo sheegay in dawladda Britain u aqoonsatay in Jarmalku maamulo guumeystana qaybo kamid ah dalalka dhaca koonfur galbeed ee Afrika halka Jarmalku uu aqoonsanayo in dawladda Britain ay maamusho sidoo kale guumeysatana dawladda Zanzibar
dowladda Britain waxay sii xoojinaysaa xiriirka la leedahay hadba ninka maamulaya dowladda Zanzibar markii dambe dowladda Britain kaba gacan sareysay dowladda Zanzibar boqorkeedii ilaa ay gaarsiisay inaan loo dooran karin loona magacaabi karin Zanzibar boqor kaliya tilaa uu kansaxay qunsulka ay soo dirsay dowladda Britain ee uu jooga Zanzibar xaaladda dowladda Zanzibar aynkaas ah ilaa laga soo gaaray sanadii 1896 waxaana ka tilinayay waqtiga dowladda Zanzibar xaakimkii la oran jiray Hamad bin Suwayne حمد بن سوين وحيد الدولة لها دولة بريطانيا يضين رنكر إنه وحوها هدول وحنا أنت نوع عسك جسور تشتي إن هذا الكير روما هو اللي رنتري خالد بن برغش خالد وحو جسور تشتي وراح أنت دولة بريطانيا إن هذا الكير أو كتري دولة دني وصمينا يسدنا الضوء وجوياه إلا اللي جسوا قاريشان يلا باتنك وقصنا دكمستيد بقول اللي حس عشان كي واحد موت القفل ومد أحمد بن ثوير أو هذا بدل في دولة بريطانيا كترين زنجبار يدو تاريخي هذا إن بدنا كم مدينة الشيعان صوت ودين هاي يدو للسمية وقت كاس دولة بريطانيا واحد ديارنيسي عدة يكون بدر إلى هاي أحمد بن ثوير يدو كل دورنيسي سلطان كاي وصح لنا سين وكتري زنجبار إنه يده داعد وياي سيدنا هذا وقار كاي يوقف وشن كرايسو دولة زنجبار لحديده سلطان كاي ديارنيسي وحوا حمود بن محمد أو يده داعد وها لكن واحد عاي وحاني فلان هاي بريتشكو يدو خالد بن برغش وكل واقعين هي حاكم كي سلطان كعصب أيرنيسو دولة زنجبار وحنا سي حوقه كلا قصري مدحتويده لو قلت لنا دولة زنجبار سقوا عيدنا سقوا قار وتا استمكي waxa ka biyo diidaarinta taasi ah dowladda Britain waxaana ku dhawaaqday in aanay u aqoonsanin Khalid bin Barghash inuu yahay xaakimka ama sultaanka cusub ee dowladda Zanzibar iyadoo sidoo kale ku eedeysay inuu ku takrifalay heshiiskii dhexmaray dowladda Zanzibar iyo Britain sanadii 1860 dhigayay in aan sultaan iyo xaakim loo magacaabi karin dowladda Zanzibar ilaa qunsulka Britain u fadhiyo dowladdaasi oo kaansaxnayo waxaana ugu baaqday inuu Khalid isxasilo asahaatee dhig talaq u muusan waxaanu dhufeys ka dhigtay madaxtooyadii isagoo watay 3,000 oo askari dowladda Britain waxa ku dhawaaqday falka uu Khalid sameeyay uu tixgelinayay inuu yahay dagaal qawan oo lagu soo qaaday dowladda Britain maadaama arrintaasi lid ku tahay danaha gaarka ah ee Britain ka fushanaysay dowladda Zanzibar Khalid bin Barghashna waxa siisay 2 cisho si uu isaga casal xilka kaas ah oo isu magacaabay hadii kala dagaal ay ku soo qaadi doonaan laakiin Khalid dagaha ayaa uu ka furaystay saacadu markay meerisay 9 subaxnimo taariikhduna ahayd 27 sanadii 1896 waqtigaas ay markii soo idaan Khalid bin Barghash waxa uu ku sii deganaa kursiga taasina waxa keentay in Britain soo dirto ciidamadeeda ciidamadaas oo ka koobna 2 markab oo ku dagaalka iyo sidoo kale 3 doonyood oo sida ciidamadii infantry-ga ah askarta doonyuhu sidana waxa ay dhamayd 1,050 askari oo iskugu jira ciidamada Ingiriis iyo sidoo kale kuwa dhashay dowladda Zanzibar ciidamada Khalid bin Barghashna waxay ka koobnaayeen 3,000 oo askari oo isugu jira beerele adoomo iyo sidoo kale ilaaladiisa gaarka ah oo dhamaantood haba yaraataan haysan khibrad dagaal وحب علوس لو شيء كريه تنا هبا ياراتيه ميهسن كليه تو waxa ku gaashanay 3 madfac iyo sidoo oo kale doon yar oo awalkii horeba Ingiriisku hadiyad ahaan u siiyay dowladda Zanzibar waqtigii Khalid bin Barghash loo qabtana waxa uu ka 9 iyo 2 daqiiqo oo go'a markii waqtigii sidaas u gaareen dowladda Britain ciidamadeedu waxa ay bilaabeen duqeyn aad u baahan oo ay duqeynayeen qasdigii boqortooyada Khalid bin Barghash iyo ciidamadiisu ku gabanayeen dhulkaanay la simeen madaaficdi aad ka qadiimiga oo hayday haysteen haba yaraatay waxba ay ka tiri waayeen ciidamadii Britain doontiirada markii hore Britain u siisay hadiidana isla markiiba waxa qarqiyay markab kamid ah maraakiibtii dowladda Britain oo madfac la helay iyadoo 9 daqiiqo markii ay saacadu mareysay gabi ahaan bay isdiibeen ciidamada Khalid bin Barghash intii ka soo hadhay ee ka badbaaday dilkii taasna waxay ka dhigaysaa in dagaalkan socday 38 daqiiqo dagaalkaasina waxa loo diiwaan geliyay inuu ahaa dagaalkii ugu gaabnaa taariikhda abida inta kadibna ciidamada infantry-ga doonyuhu sideen baa berrigii la keenay waxaanay soo galeen qasrigii oo ay qabsadeen gabi ahaantiiba kadib markii awalkii horeba ay burburiyeen Khalid bin Barghashna waa uu ka baxsaday goobtii iyada ahayd maamulkii dowladda Zanzibarna waxa lagu wareejiyay Hamud bin Muhammad kii awalkii horeba ay la rabeen hasaate dagaalkaas waxa uu ka dhigay in Zanzibar ay noqotay maxmiyad iyo dhul guumeystay Ingiriisku iyadoo uu guumeysanay muddadan 67 sano halka iyadana maanta waxaad ku baratay dagaalkii ugu gaabnaa taariikhda abid hadii tir dowladaha ama dadku markay dagaalamayaan way isku awood dhow yihiin laakiin dagaalkani labada awoodood ee dagaalamay isku may dhaweeyeen oo aad bay u kala baaruunayeen taasina waxay keentay in qoladii kale dagaalka markay ku dhawaaqeen macnaheedu ahayd mahlako iyo geeri baan u diyaarnahay muuqaalkana kana haynay intaas ayuu ku eegay fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka ku soo biraadigo subscribe taabanaya kamaleelkana furasi uu ku soo gaaro muuqaal waliba markii uu soo gudbo videogeena kana ahna like gare una sii share gare asxaabta aad mahadsantiin
nabadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.